Agagaarka harada Lake-Eyasi ee dalka Tansaaniya waxaa ku nool qabiil qadiimi ah oo tiradiisu ku dhowdahay 1,000 qof, kuwaas oo ah ugaarsato iyo urursato u nool kumanaan sano ka hor qaabkii aadanuhu u noolaa. Waxay leeyihiin dhaqan gebi ahaanba ka duwan qabaa'ilada kale ee dalkan ku dhaqan. Iyagu waxay dadka ku nool nolosha casriga ah u arkaan bulsho ka gooday asalkeedii, mashquulsan, isla markaana lumisay xididadeedii iyo ruuxdeedii. Maanta waxaynu wax badan ka ogaan doonaa nolosha qabiilkan ugaarsatada ah ee Hadzabe Tribe. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Qabiilka Hadzabe waa mid ka mid ah bulshooyinka ugu qadiimsan ee weli si toos ah u sii wada qaab nololeedkii hore ee aadanaha. Waxay ku nool yihiin waqooyiga Tansaaniya, gaar ahaan hareeraha harada Lake-Eyasi, oo ah deegaan qallalan oo iskugu jira bannaan, dhul hawd ah iyo buuro qalafsan. Goobtan fog ayaa ka caawisay inay ka goonaadaan saameynta xooggan ee nolosha casriga ah, taasoo u suura gelisay inay ilaashadaan dhaqankoodii soo jireenka ahaa muddo kumanaan sano ah. Hadzabe waxaa badanaa lagu tilmaamaa inay yihiin ugaarsato iyo urursato, taasoo macnaheedu yahay in noloshoodu ku tiirsan tahay waxa ay si toos ah uga helaan deegaanka. Ragga qabiilkan ayaa subax kasta u baxa ugaarsi, iyagoo wata qaansooyin iyo fallaaro si xirfad leh loo sameeyay. Waxay bartaan raadraaca xayawaanka iyagoo isticmaalaya aqoon soo jireen ah oo ku saabsan dhaqanka duurjoogta. Ma laha guryo waaweyn ama dhismooyin casri ah. Waxay dhistaan hoy ku meel gaar ah oo ka samaysan laamo iyo caws, kuwaas oo si fudud loo burburin karo marka ay u guurayaan meel kale. Dhaqankooda guurguurka ah waa mid ku salaysan hadba meeshii ay ka helayaan baad iyo biyo ku filan. Tanina waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaysan lahayn hanti badan oo ay urursadaan, taasoo ka dhigaysa nolol ku dhisan wadaag iyo isku tiirsanaan. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu cajiibsan ee qabiilkan Hadzabe waa luqadda ay ku hadlaan. Waxay ku hadlaan luqad leh dhawaaqyo cajiib ah, kuwaas oo ka dhigaya mid aad uga duwan luqadaha kale ee Afrika. Luqaddan ma leh qaraabo dhow oo la mid ah, taasoo ka dhigaysa mid aad muhiim ugu ah cilmi-baarayaasha daraaseeya luqadaha qadiimiga ah. Carruurta Hadzabe waxay luqaddan bartaan iyagoo yaryar, waxayna si dabiici ah uga dhex bartaan waalidkooda iyo bulshada ku xeeran, taasoo muujinaysa sida dhaqankoodu u soo gaarayay jiilba jiilka ka dambeeya. Bulshada Hadzabe ma laha nidaam dawladeed oo rasmi ah ama hoggaan adag. Ma jiro boqor, madaxweyne ama oday si buuxda u maamula dadka kale. Go'aamada waxaa lagu gaaraa wadahadal iyo isfahan, iyadoo qof walba uu leeyahay xorriyad weyn. Qaabkan nololeed wuxuu muujinayaa inay jirto bulsho ku shaqaysa sinaan iyo wadaag, taasoo ka duwan nidaamyada adag ee dawladaha casriga ah. Inkasta oo aysan lahayn sharciyo qoran, haddana waxaa jira xeerar dhaqan oo si dabiici ah u hagaya habdhaqankooda. Cuntada Hadzabe waa mid si toos ah uga timaada deegaanka, taasoo ka dhigaysa mid caafimaad leh oo dabiici ah. Ma isticmaalaan cunto warshadaysan, sonkor badan ama kiimikooyin, taasoo sabab u ah in badankood aysan la kulmin cudurrada casriga ah sida sonkorowga ama cayilka xad-dhaafka ah. Tani waxay xiise gelisay saynisyahanada, kuwaas oo daraaseeya sida habnololeedkoodu u saameeyo caafimaadkooda. Waxay sidoo kale leeyihiin aqoon qoto dheer oo ku saabsan daawo-dhireedka, iyagoo isticmaala geedo kala duwan si ay u daaweeyaan xanuunada fudud. Si kastaba ha ahaatee, nolosha Hadzabe maanta ma aha mid gebi ahaanba ka madax bannaan saameynta dibadda. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn waa isbeddelka deegaanka. Dhulka ay ku nool yihiin ayaa sii yaraanaya sababo la xiriira ballaarinta beeraha iyo degsiimooyinka dadka kale. Tani waxay yaraynaysaa meelaha ay u ugaarsi tegi karaan iyo ilaha ay ka heli karaan cuntada. Sidoo kale, dalxiiska ayaa noqday seef laba af leh. Dhinaca wuxuu keenaa dakhli iyo fursado cusub, laakiin dhinaca kale wuxuu keeni karaa in dhaqankooda si xad dhaaf ah loo soo bandhigo ama loo beddelo si loo qanciyo dalxiisayaasha. Waxaa kale oo jira cadaadis ka imaanaya dawladda iyo ururada qaar oo doonaya in Hadzabe lagu qasbo inay qaataan nolol deggan oo casri ah, sida beerashada ama waxbarashada nidaamsan. Inkasta oo ay arrimahan keeni karaan faa'iidooyin badan, haddana waxay sidoo kale halis gelinayaan jiritaanka dhaqankooda gaarka ah. Dad badan oo qabiilkan ah ayaana wajahaya doorasho adag, taasoo ah inay sii wataan nolol dhaqameedkooda iyo inay la qabsadaan isbeddelka dunida casriga ah. Ugu dambeyn, qabiilka Hadzabe waa tusaale nool oo muujinaya sida aadanuhu u noolaa kumanaan sano ka hor. Inkasta oo ay jiraan caqabado waaweyn oo horyaalla, jiritaankoodu wuxuu weli xambaarsan yahay muhiimad weyn oo ku saabsan fahamka asalka aadanaha iyo kala duwanaanshaha dhaqamada dunida.
Ilaalinta iyo fahamka bulshooyinkanna waxay muhiim u tahay in aan la lumin qayb muhiim ah oo ka mid ah taariikhda aadanaha, taasoo Hadhsaba ay si sharaf leh u matalaan ilaa maanta.